soomaalidu waxay tidhaahdaa ama hees baa tidhaahdaa qof baa dherer iyo laxaad leh garashadana dhallaana bal ilaahay baan idinku dhaariyey qofka nacaska u eeg ee garhka iskala baxay inantii waxa uu ku leeyahay sheekh nasiibe aadan waxa uu ku leeyahay balileega mikrofonna iyo kamarada la isla daba ordaya waxaas waa sheekadii fanaaniinta iyo showyadii fanaaniinta kama dhacdo waxaan diin faafin maaha sacad musoo qabta waxayaa qabay horta kuwii qabay maxaa talaad adiga murtadkan صدق كوا سعيد سرب الهبري ولسه ناكتين مسكين كا garka iskala baxay mar alla markii la dhageysan waayay isaga ee loo juuqi waayay ee waxba laga qori waayay cilmina ma laha aqlina ma laha mid maadina ma laha mid ma garanaysaay mid diimeedna ma laha maxaa lagu dhageysanaya war waxaad garanaysid ka hada oo inantani ummaday u dhaxaysa fanaanad iyo mid kale oo sheekadaba way u dhaxaysa oo wanaag cidna xumaan kuma sheegto subxaanallah cidna kuma tiraahdo ma fogeysay waxa weeye adigu bal wax laga dhageysto cilmiyada dadka laga dhageysto mid uu soo baro intaasaan kaga tagaya garkan iyo gafuurkana ha ceebeen baan kula inaadeero meel fadhiiso dumarkana xaynkooda ka fud waayahay saaxiibeel soo dhawaada qodobkan waxaynu ku faahfaahin doonaa waxa weeye maxamed abiib shalay anigu waan ka fuqay hebel baa ku dhaganaa hadaad maqli jirtay awal waxaan dhaliili jiray waxaan oran jiray ninkani ciidamadii waanu ka soo adkaanay huwantu lahaayeen sabab ma ugu farxaya baan shalay lahaa waxa weeye anigu maxamed abiib shalay waan ka fuqay waxa weeye waa xiniya cadde banaankiisa ku dhacay waxaan idin tusi doonaa nimankii cadowga ahaa shalay siday u doonayeen in ay gobolka awdal khashaqaaqo ka dhacdo maxamed abiib bay doonayeen xitaa in lagu dilo shalay maxamed abiib gobolka awdal in lagu dilo ayay doonayeen balse ciidamada ammaanka iyo kuwa sirdoonka iyo kuwa bileyska oo iskarabsanaya iyo shacabkii reer awdal oo Soomaaliland ha noolaatayda yiri ay cadawga ka seexan waayeen shalay ilaa maanta ilaa xalay bal qodobka isaga ah waan dul istaagi doonaa ninka maxamed abiibna awal waxa lagu xaman jiray Soomaaliya ayaa lagu xaman jiray bal Soomaaliya wuxuu ka aaminsan yahayna waynu dul istaagi doonaa qodobka labaad ee ka hadlaya waxa weeye waa neefkan iska garka weyn Allah ha u naxariistee inanta qiimaha badan leh ee uu sheekhi dhalay ee sheekh aadan siiro uu inooga tagay baryahan ugu dambeysay dumarkeena taxun iyo ta wanaagsanba si fiican bay ula talisaa taxunna kuma qayliso subxaanallah kuma tidhaahdee way u yeedhaayo way u caqli celisaa ta wanaagsanna walaal dadaalkaaga si wad bay ku tidhaahdaa waxaan arkay ku doqona oon isaga cid alle cid dhageysata waayey inan yar oo kotonla waxa weeye waxa bulsho ay wacdiso iyo waxay bulsho waanisana xaynkeedu haysta war reer Soomaaliland waxay soo baranayaan sidii dumarka xaynkooda loogu dhigi lahaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un balkan garka weynlana waan dul istaagi doonaa waxaan dul istaagi doonaa isaguna mid kale sheegto isaguna markaa nacasa oo isaguna dumarkii shaqo ka dhigtayba shalayna qaabkan uu hadlay waayahay saaxiibeel soo dhawaada haddaan idinku dheereeyay hordhacan iga raali noqda channelkan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar muuqaalka like noo saar meel fog noo gaarsii si ma garanaysaa uu fikradan anigu aan wadaa haddii aad ila fikirtay muuqaalka share garee fikirkayga haddii aad ku qanacdid oo dhageysatay muuqaalka share garee aad iyo aad baad mahadsantahay bal aynu ku horeyno ninka maxamed abiib la yidhaa waa xiniya cadde markaan idin leeyahay waa nin banaankiisa ku dhacay macnaheedu maaha maxamed abiib inuu noqday maalin muuse biixi hadduu siyaasadiisa diidan yahay cadow maaha haddii uu yidhi Soomaaliland ha noolaato muuse biixi ha dhaco waa wax lagu taageero shalayna cadowgii Soomaaliland waxay ka xanaaqeen boqolaal qof kumanaan kun qof oo reer awdali markii ay soo dhaweeyeen maxamed abiib oo uu yidhi Soomaaliland ha noolaato shacabkii dhammaantood nimankii cadowga ahaa beerka wada go'ay Soomaaliland ha noolaato shacabkiina waxay ka tabar yiraahdeen Soomaaliland ha noolaato in abiib waxa uu noqday xiniya cadde banaankiisa ku dhacay war mar waynu kala fikir duwanaan karnaa balse Soomaaliland ta la sheegayo kuma kala fikir duwanaan karno Soomaaliland waa Soomaaliland kama kaftano dhamaantayo haddii aan xildhibaan iyo shacab iyo wax garad iyo saqiir baanu nahay waxa weeye klibkii shalay laga xanaaqay bal waa kan hadda yar leeg مصادعه جمهورية Soomaaliland ha noolaato
somalilan ha noolaato muuse ha dhaco annaga waxba nagama gelin hadduuna maxamed abi muuse dhisayn oo ay kala siyaasad yihiin waayo maxamuud xaashi oo siyaasiyiinta somalilan kuwooda ugu cadcad ka midaba waa kii masraxa ka salaamayey muuse sidaa awgeed la mid maaha siyaasadiisu balse muuse way kala siyaasad duwayin ha dhaca hadduu idhaahdo wax macnoo ku jirtaa ma jirto balse ma yidhi somalilan ha noolaato intaasi cadowga reer somalilan ee diidan nabadda gobolka awdal ee diidan somalilan mida shalay way ka naxeen wallaahi bilaahi beerkaa go'ay ka ugu weyna anaa idi tusi doona ay huwantu soo adeegsato bal mar labaad waxaad ila eegtiin maxamed abiib waxa lagu xantaa war maxamed abiibow hee adigu soomaali weyn baad qaabkan ad u hadlaysaa soomaali weyn baad rabtaa war xamar baad rabtaa dad badanoo war xamar tagta ku ayaan arkayay bal allah idinku dhaariyey kilibkana aniga fajac iyo yaab igu abuuree bal isna hadda ileega way aw yaana tari karaa anagu Soomaaliland naga ah way annaga go'aansanay way wuxuu kuma joogno way garashadeeda ku joogno way waxaan u aragnaa inaanay alternative kale meel kale qabtaa ma jiro صح dadka qaar baa ka warramaya xamar iyo Soomaali هي xamar nimankii dhulbaatay dagaalamay ee sool iyo SSC khaatuma la bahay albaabka laga furlay البابك tan waa dawlad way la isdhaliilay haata albaabka si looga furlay albaabka laga furlay qolihii amniga maxaa la dhahaa amniga muxuu قرأت مدرسة ولا تشيا كونفوت مالنا مدرسة قرن كمية واللوتي دي مدارو يسوق مقعبين وفرديا حمد خيطات وكشة كيني يعني معنا له استوى تهوي هي ضد رد قال لي وستة بقولهم فردتين وستة كنا قف من نفس سوماليات بنتين هي قال باكل يفروا إنا لله وقولي من غيرك لو فريسوا هو ما كان معنا كشة كي سومالي كشة كينيا وحويا وانين والله بالله إني سكوت دوي بقول تويشي كتير يعني كيله هلا تقول سكوت دوي بدك خير أوضل ها بدك دمنا دلة دمشة ده هلا على صوت سوق بالجويد دمنا دمنا عاد الشعب جمر يدك ها أركتي ما واحد الذي يعني أركتي ده يكون دونيان سومالا كود يدي هذا أركتي صح ما يا ما صح ما حاجة الله صعد مركب ميل واحتيابه ميل تجمع وهذا ميل توش سيدتين تأكدت كتير ميل كتير سعودي وصل يمشي واي waxa uu yiri aniga dadku waxay ugu xantaan maxamed abi Soomaali uu shaqeeyay wax noocaas balse waxa uu yiri situationkay hadii aan anigu maanta ka tago Somaliland situationka kale tagaya waxa weeye nimankii 800 nimankii dhul bahantay ee 800 ee wiil u dhinteen qadiyad Soomaaliyeed ayaa albaabka laga furi lahayd gulay waniyo anu maxamed abi qofku wuxuu ku fiican yahay waa lagu taageeray wuxuu ku qaldan yahay waa laga qabanaya wuxuu ku qaldan yahay waa la dhaliilaya waana loo sheegay runtaana loo sheegay maxamed abi wuxuu yiri hadii aan anigu hadlo oo wax badan sheego bartani waa dawlad waa la is dhaliilaya balse halkaasi wiilal Soomaaliyeed oo 800 oo wiil gaadhay ayaa qadiyad Soomaaliyeed u dhintay cid alle cid maamulkoodii albaabka ka furtaana ma jirto buu kulay kolka reer awdal maxaa loo oranaya meesha dhimatay bi tagay anaga ma bila aqli been noo haystaan Somaliland taas anaga waxnu ku nahay oo dawlad ku nahay oo wax kasta ku sheegayna maxamed abi uu guuleystay wallahi aniguna shalay taageerihiisa ayaan ka mid noqday xildhibaanka muuqaalkan u geeya xaqiiqu shalay ka hadlay raggii dhibsaday mid kamidi waa kan waa sakhraan geestiin in la yiraahdo oo ma jeerteena oo dawladnimo meel alle meelay ka jirto aan arag ayaa doonaya nimankii Samaroon ee intaasoo sano madaxweynaha ahaa inuu kaga ciyaaro nabadooda wixii sodonka sano ay Somaliland la dhisanayeen ee wada ahaa ee cashuur ahaa ee walaalnimo ahaa ayuu doonayaa inuu ka baabiyo bal hadda ilaahay baan ku dhaariyo wuxuu ka sheekeynaya ninkii ila adiga bana baxdal boora ma isku qaaday baa mustaaqil maanta dan saasan life ku jira dadku tira badala banaabaha waxaan islahayn maanta Samaroon ama godol bigisay ka u taqaan maanta bacay saanta u furay iyo keenadii baako isagoo xoraa ka boodaya isteed ku dhawaaqaya maasna awdal isteed saa u daawanin waxaan ka soo baxay waxa uu yiri sidii aan u daawanayneen doonayay inuu maxay dhacday maxamed abi yiraahdo awdal state ha guuleysato Soomaaliya ha guuleysato uu buurubi ku leeyahay Somaliland ha guuleysato waxa wadnihii dhacay waa nooca ugu weyn ee Somaliland ka soo horjeeda balse Somaliland intuu dadkeedu ilaashanayo intay dad
maskax badan oo aqoon-yahaniina oo indheergaraday intay u harsayn Somaliland waxa ma noqonayso waxaan leeyahay cadowgow shalow qacbaa idinka yeedhay Somaliland aqoonsigeedu uu soo dhow yahay waxa weeye adaga aqoonsigu meel adag buu naga tagay qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland iyo gooni isku taageeda iyo dal ahaanshaheeduna annaga meel sare ama meel adag baanu ka taaganahay waxaan leeyahay cadow kastoo ku farxaya in awdal qalalaasa laga rido wallaahi oo billaahi inay dhacay awdal odayaasheedii ayaa hadlay shalay waxay yidhaahdeen ciidamada ammaanka kuwa sirdoonka kuwa bileyska laamaha socdaalka intaasba shacabka la shaqeeya waxa weeye Somaliland baynu wax la dhisanay 30 sano ayaa cashuurteena laynoogu shaqeynayay 30 sano ummadda kale halkii ay iska gumaadaysan inagu horumar ka shaqeynayay oo jaamacadaheena iyo wadooyinkeena iyo hantidii guud iyo magaranaysa wixiiba wada dhismeen kolkaa waxaan leeyahay cadowga Somaliland shalay qacbaa ka yeedhay sidii ay doonayeen way u noqon weyday laakiin sidii ay Somaliland ku wada joogaysay Maxamed Abiibna sameeyay Maxamed Abiib sida uu shalay sameeyay hadii uu ku wado waxa uu noqon doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iga qora waa hadii aan wada nool lahay ninka waynu arki doonaa waa hadii uu sida ku sii socdo waayahay qodobka isaga halka baan kaga tagayaa bal nimankii culimada sheeganayay baryahan dambe waxa soo badanayay niman culimo sheeganaya oo hablaha reer Somaliland xaymankooda ku dhagan waxa la wax kale kuma garati mid la baxay daaci saalax la baxay iyo mid kale isaguna dibadaha jooga ayaasna bal aynu ku horeyno kan garka weyn leh nacaska Nasiime Sheekh Aadan ayuu xaynkeeda haystaa war haddii Nasiime Sheekh Aadan la dhageystay oo bulshada shacabka reer Somaliland intooda hablaha ay waliba hablihii dhageysteen mid ma garanaysa fanaanada iyo mid sheekhadiiba haddii ay dhageysteen oo cilmi ahaan iyada loo dhageysanayo adigu garku inta uu ku leeyahay haddii cidi ku dhageysan weydo ma waxaad leedahay inanta la fadhiisiyo wakaada caqli darro waka hees baa ahayd qof baa dharar iyo la xaalay garashadana ka dhalaana ninka intaa leega garkiga gafuurku inta uu leeyahay waxa weeye garashadiisu waa dhalaan qolfoofna waa u leeyahay dhar iyo laxaadna waa u leeyahay qof weyn oo miisaamana weeye bil ilaahay baan ku dhaariyay inan maanta ugbaad aragsan iyo ma garanaysa ay najma nashaad iyo intii kale cilmiga lahayd ba si fiican wax ugu sheegaysa oo cidna dhaliilayn oo qof walba wanaaga u horseedaysa ma taasa maanta noqotay inaynu ilaahay baan idinku dhaariyay reer Somaliland way ma taasa maanta noqotay in dhaliil laga dhigo oo la yiraahdo gabadhaad hayso war gabadha wixii ay cilmi ku dhaanto iyadoo asturan bay umadeeda u sheegaysaa iyo dadka ay ka dhalatay adigu galkana la baxday maxaad ku haysaa adiga iyo markii lagu dhageysan waayad inta ku soo kala jeesatay bal ninka weyn wuxuu ku hadlay ilaahay يا أيها الصعب موسى أرسلي كلام نطق خاتيان أقول لك تنا ناقة الميكروفون ذي كاميرا هالور ده يوم تكقبت دين فافن معه حني دمركي أصحابتي يواجه النبي عليه الصلاة والسلام ده دمركي وحي وعدنا ين دمركي مال قارة وسمين شرين وعدي حني دين فافن معه وفتن وان ما شاء الله بيكون ساقر يعني هذا السري عمام كاغا كوسكوسن بيكون دخرين هذا روح عن الدين مع هذا الدين ده فافن سن ناقة مال قارة وتوقع وعد مايكروفون iyo kamarada la isla daba ordaya xasuwa sheekadii fanaaniinta iyo showyadii fanaaniinta kama dhacdo waxaan diin faafin maaha saacad ma soo qabta waxay qabay horta way qabay maxay talaad adiga murtad kan صدق kuwa Saciid Sulub arhabari yoonise naagtina day qabsada xalin naag dhalasho ma dhaxdina xasan musawan Allah arhabari yoonise qabsada naagtina microphone ka soo qaadatay xoolaha meesha ku jooga guriga oo haysan suunaagtiisa oo galay intaas oo microphone iyo kamarada la dawarto kaadaro wuxuu ku sheegaya amaankan ku iskuusan bay ku dakhrayn koon ma sha Allah ku safray lahay foq lahay miro baqana sheekha ma sha Allah amaankaagana ku iskuusan diinta faafinaysa naagtu waa inay asturnaad iga wallo waxa ku yiri tayaa ku dhageysanaya wax alla waxa ku hadlis amaankaagana ku mashquulsan yahay naga runta ku sheegana ka umada ka fariista naagaha laga fariisiyo umada microphone-nada qaatay iyo kamarada laga qabto miskiinka garka iskala baxay mar alla markii la dhageysan waayay isaga ee loo juuqi waayay ee waxba laga qori waayay cilmina ma laha aqlina ma laha mid maadina ma laha mid ma garanaysaay mid diimeedna ma laha maxaa lagu dhageysanaya war waxaad garanaysid ka hadal oo inantani ummaday u dhaxaysa fanaanad iyo mid kale oo sheekadaba way u dhaxaysa ee wanaag cidna xumaan kuma sheegto subxaanallah cidna kuma tiraahdo ma fogeysay waxa weeye adigu bal wax laga dhageysto cilmiyada dadka laga dhageysto mid uu soo baro intaas aan kaga tagaya garkan iyo gafuurkana ha ceebeen baan kula inaadeero meel fadhiiso
dumarkana xaynkooda ka fud markii adii lagu dhageysan waayaad hablaheena caayasa miyaa ruuxaas caado rag maaha waa caado dumar weeye ee xishoo baan ku leeyahay oo ummadda ka hor leexay bal waxaad ila egtiin isagana mid la yidhaahdo daaci saalax oo markaa isagu dumarka somalilan iyo kuwa soomaaliyeedba ku talax tegey shalayna isaguna wuxuu caayayey war nimankii garhka waaweynaa way waasheen wallahi shalay isaguna waxa uu caayayey hooyooyinka dumarku wuxuu ku leeyahay baahi badana waxbuu bay meel la fadhiisanaysaa buu ku leeyahay baradhay meel la fadhiisanaysaa jaad yar bay iibinaysaa dumarku wuxuu ku leeyahay waa dadka ugu dulisan ilaahay baan ku dhaariyey ninkaasaa sheekhi noo sheekhay daaci saalax la baxay waxaasoo kale inta la qabto in la xukumo ayaa wallaahi muhiima waxaasoo kale hablaheena say u aflagaadayn karaan bal aniga imise qof baa soomaaliyeed imise qof oo soomaaliyeed ayaa baradhiyo xabuub hooyadeed ku soo korisay intuu aabahood ka yaacay war tobannaan caruura ayay hooyadood xabuub ku biilisaa waxa weeye aabahoodna iska jiifaa bal ileega waxaan nacaskii siduu hadlayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله المستعان. يدمر توكس جعلا. شو؟ شقنا كشقين وشقين كقوليد. هذا كيف صار؟ باهي ذي فقر يقول دمر كجعل بين. شاهر بميل فرسان في بنيسا. شادير بميل كوي بنيسا. مارير بيتمان داير كوي بنيسا. شقوين كو. وهوسي وليت دمر معك جا توكس نكي بس ده يقول فري أفرب يقول فري وحتى يا بلال ونيو نعسي ونوعاغن umada wax uma sheegeen dumarkana wax kama sheegaan hooyooyinka sharafta leh iyo hablaha sharafta leh umada ka hor leexo